shirkadda Allaabta Guryaha Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha. qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya. waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku sameysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya. sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 bani oo kaliya. soofaha waxa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya. halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya. shirkadda Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa 60% dhammaan alaabta guryaha. waxa lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono, waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah. haddaba horey u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inegol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London. wixii faahfaahin inta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الميل بدون كتجوكتان أدنى دعوة سامبا كسر هذا تي في عالمي الصومالي كيبل وعاوي برنامج خاصة عن وطلقلني غريها الصومالي ده حفظها الصومالي ده بالشدة الصومالي ده إن أصلا بندقنه هرمركا أي جارين رنتي إنه يود بلدقان وغريها ده قرصان وحنعاوي دي هنا كومبينينج لما قاعد بحي Inegol Home Furniture. Inegol Home Furniture sida asaashada ka aragtaanba wuxuu sameeyaa qalabka guryaha, sariiraha, fadhiyada. haddii aad tahay xoogaa oday cuslaado raba inuu xaajiyada ka qosliyo oo guriga oo dhan refresh ku sameeyo, Inegol soo daawo ayaanu ku leenahay. kol anigu aadaya adiguna xaajiyada keen. haddii aad tahay iyadoo gabar laftigeeda rabta odaga inay dhahdo aan mar labaad dib soo aroosnay aqalka inaga bedel, Inegol is the place for you. waa meel aad soo booqan kartid alaab jaban qiimo leh. arintaas ayaan waxaan ka wareysan doonaa managing director-ka ee shirkadda Inegol Home Furniture, Mr. Erham. Welcome to the show. Well, thank you very much for having us here. It's great to be here. It's lovely to have you here, and it's a wonderful from what I am seeing and from the screens. But perhaps you can tell us a little bit more. Inegol, how old you are, guys? How good is this furniture you guys are displaying? On the look, it looks very beautiful, but on the quality-wise, tell me the whole history of Inegol. Well, in the UK, although we only been here for 1 year, but our factories, they've been over 30 years in Turkey. Inegol is the city of Turkey where the furniture city is. There's 2,000 manufacturers. Wow. This is where the quality comes into the furniture. This is where the Middle East, and this is where the African countries, that's where they get their quality furniture from. So we're the only moment in the UK that is bringing the most quality furniture from Turkey of Inegol City with the name Inegol Home in London at the moment, and we are based in South Croydon. Fantastic. 30 years, that itself is a quite statement. I mean, 30 years of doing and the same furnitures. You must have got it right. And we will show you some of the waxaan tusi doonaa inshallah some of the staff kani waa Sofihi and Maxamed Yara dhinaca farsamada noo jooga ayaan korsofaas waxaan rabaa runtii kursigaas inaan kor istaago wax yar. and haddii aad gadatid mid kamida why buy one product and kan labaad wuxuu ku noqonayaa half price. So for example kan haddaad gadatid kan labaad oo aad gees kala dhiganaysid wuxuu ku noqonayaa half price. arintaasna waa first call first service marka ka gaar ayaan idin leeyahay runtii waa offer aad u wanaagsan. And coming back to you, and there is a lot of offers and a lot of good stuff. Tell me what are the offers now in place? Well, first of all, we've got two offers. One is for people who's actually watching us now. The Somali friends who's actually watching us at the moment. As long as they text their name to the numbers that's going to show on the screen, they will get a special offer on the sofas that we are showing on the screen. Yeah. From £2,250. Just because they're watching us now and they're responding and they're texting, they will get those sofas for only £1,250. Fantastic. We'll come back to the next offer. We will have that number on the screen soon, but I'll tell you it's 073 99562408. It's on the screen. You can call that number and you can text that number and waxaad ku qori kartaa numberkaas fariin baad u diri kartaa. waxaan xiiseynayaa
kursigaas haddaad hadda dhahdo someone baa qof baa kaala soo hadlaya tomorrow oo perhaps maalinka ku xigta kadibna kaala xaaltami doona sidaad wax u doonaysid interestiga iyo inay xalaal environment tahay ayaanu weydiin doonaa before I go to the next offer one of the obviously and my public question is for Somalis is very Islamic people and in terms of if I want to pay installment is there an interest? Absolutely not, because we're a Muslim people. It's a Muslim company, it's a halal company, so ideally there is no interest whatsoever, and there's options up to 4 years installment plans, payment plans. And the great thing is we will guide every customer individual to help them. We will make sure they will get the best packages that will suit for their needs and for their budgets and how much they can afford a month. Excellent. That's and one of the kaasna waa runtii arrin aad u muhiiman maadaama aan nahay ummad muslina hadda ad ogtihiin haddaad dukaamada ingiriiska tagtaan oo aad dabacdaan inaad Argos iyo Dream Beds iyo kuwaas oo dhan haddaad tagtaan waa interest based stores weeye laakiin with Inegol waa absolutely interesting iyo ribada way ka soo horjeedaan waxay idin provide garanayaan xalaal service haddaad 4 sano kaba soo qaad alaab intaad qaadatid aad rabtid inaad 4 sano gudaheed ku bixiso ama 3 sano ku bixiso ama 2 sano ku bixiso waa no interest waxaad qaadato ay baad bixinaysaa qiimahoodii what you will actually pay is what you get. For example, if I take staff which 6,000 pound and I say I'm going to pay within 6 months and I'm going to pay 1,000 pound a month, there's no interest. There's no interest. You pay for what's been told there and then. There's nothing else that you pay for. Thank you for that. The other kale arinta kale aan runtii dadku badana ama hooyooyinku ay isweydiiyaan waxa kamid ah guarantee ma leeyahay haddii kursigii aan qaato oo uu jabo ama armaajo weyn inta soo qaato ay kala jabto maxaa laga yeelayaa taasaan weydiinaynaa Mr. Erham, the other issue which might also come to customers' mind is in terms of guarantees. If I buy a wonderful stuff which looks really good on the screen, but something happens and it's broken down, then what happens? Now, with Inegol Home, you get 2 years manufacturer guarantee. Okay, and what happens after the 2 years is the most important factor, because 2 years is a very short time. You know, the purpose of selling a product, a furniture, with Inegol Home, we want people, our customers, to keep that furniture for as long as they can. You know, minimum they should keep it for 7-8 years at least, right? So for us, the most important thing is after the manufacturer warranty. After 2 years, we give lifetime service. So we understand it's a furniture. Sometimes things can happen. You got families, friends, kids, children come in, which you cannot control, and they can break part of the furnitures, and we are more happy to come and fix them without any charges, as long as they're not a major purposely faultage made. Inegol Home promises to keep your furniture for as long as you can. arrintaasna waa runtii arrin aada loo soo dhaweeyey 2 sano haddaad maanta furniture ka gadatid storeku wuxuu leeyahay ama dukaanku wuxuu leeyahay guarantee for 2 years oo lacag ka bixinayn wixii intaa ka dambeeya Inegol diyaar bay u yihiin inay inta idin yimaadaan ay furniturekiina hadba idin dhoojiyaan wixii cilada ku soo kordha arrintaasna waa runtii arrin kale mar kale aan kugu celinaya waa numberka shaashada ku qoran qofka caawa daawanaya waa 073 waa eber 73 9956 24 eber 8 haddii aad hadda daawanaysid numberkaas text u diraysaa alaabta aad xiiseynaysid kuwaas shaashada saaran ayaad ka dooran kartaa maybe waxaad jeceshahay kursigaas aad ka heshay waxaa laga yaabaa inaad ka heshay midka kale oo dhinacaas ka jeedo daaqada saas ugu dhagan waxaa laga yaabaa inaad ka heshay midka kan binkiga ah dhinaca sariirahana waa intusi doona waxaa laga yaabaa kan inaad ka heshay soo wac numberkaas waa 07399562408 ama text usoo dir someone ama qof ayaa kaa soo wacaya tomorrow insha Allah ama day after insha Allah kaala hadlaya arrintaas marka inta laga dhamaysan ka gaar baan ku leeyahay I'm going, are you going, that's the question, and insha Allah kan kale aan usoo noqono so we've covered one offer. What are the other offers in place at the moment?
At the moment, the major offer that we have is it's a good news for people who actually wants to buy more than one product. Some customers, they come and buy a bedroom set, and obviously buying more than one set could be sometimes, for their budget, it could be a lot. So what we did as Inegol Home, the offer is when somebody buys one product, the rest of the products are half price. So when somebody buys a sofa set, the bedroom set will be half price. The dining table will be half price. The kids' rooms will be half price. So regardless how many products they buy, after the first product, every single product is going to be half price. Wow, that's an amazing offer. So, arrintaas aan wax yar kor istaago, haddii aad xaajiyadii odagu ay iska bedelaan chiefka kaba soo qaad, carruurta qolkooda wuxuu noqonayaa half price. So let's say 3,000, 6,000, 5,000 baan baad ku isbeen garaysay on the main bedroomkii qolkii weynaa oo reerka kabarkiisii iyo armaajadiisii iyo fadhigiisii iyo wixiisii oo dhan alaabtaas oo dhan isku qoofalan. Waxaa lagu siinayaa Inegol waxay ku siinaysaa carruurta qolkeedii inay ku dhahdo wax walba ku bixi lahaa waa half price. Waxaan daawan doonaa qaybo ka mid ah videoyada bal cliptan yar nala daawada just to see sariiraha iyo service-kooda nooca uu yahay iyo sida lagu soo dhaweynayo. Maxamed Yar ayaan leeyahay bal nala daawada cliptan. Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha. qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya. waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya. sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 geni oo kaliya. soofaha waxaa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya. halka alaabta qolka carruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya. shirkadda Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha. wax lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono. waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama weliba bilbil ah. haddaba horey u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inegol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London. wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Thank you very much, Engineer Mohammed. Allaabta tusay waad ka hesheen baan u maleynayaa ka warrama alaabtii quruxda badnayd ee saa isu daba maraysa. yaa aroos baa xaafadaha laga dareemayaan u maleynayaa kolley anaa ugu horeynay yaa xajiyada alaabta in laga bedelay adiguna xaji yaa ma daawanaysaa waxaa la gaaraan isleeyahay weliba raggay saaxiibada ahayn oo qaadka cuni jiray oo yaa aroos xaafada oo dhan oo bahalkii laga raystay ha lagu bedelaan lacagtii leeyahay xajooyinka guryo cusub iyo fadhiyo cusub ha loo diyaariyay. waa wonderful guri qurux badan, family beautiful ah, carruur qurux badan. waa xaq baan u leenahay in guryaheena quruxsano. Coming back to you, and one of the other selling points for you is the environment where you create. A lot of mothers who maybe have a limited English, when they go to other stores, they feel quite unwelcome. So what strategies, how welcoming is your stores? It is actually very welcoming. It's a very warm atmospheric. And because everybody is Muslim that works inside, it's great because we also have Somalian staff who actually speaks fluent Somalian and fluent in English. So anybody who walks through the door, especially the Somalian customers, they feel like as if they are home. Because the environment is extremely free. In terms of, we've got customers who actually prays in our store. We have customers who actually sits down and relaxes in our store. We offer them Turkish tea, Turkish coffee, which is a very good point because we realize that Somalian people, they do actually like the Turkish tea a lot, and they just cannot stop drinking it. And we're very happy to offer them and open our hands as much as we can. Fantastic. So arrintaasna runtii waa arrin meesha ku jirta markaad dukaanka tagtid inuu qofku dareemo inaan pressure cidna ku saarayno aad meesha lagugu soo dhaweynayo salaada casar hadday kugu gasho salligii lagu siinayo aad ku tukan kartido lagu leeyahay soo dhawow gabdho yaryar oo Soomaaliyo
soomaaliga yaqaano eedo iyo habar yar soo dhawow galabta maxaan kuu keenaa bal imagine adoo inta dukaan tegay gabar yar oo soomaaliya xijaaban inta ku timid ku tiri haye habar yar maxaan kaa iibiyaa that itself baa muhiim ah waxaa iyaduna muhiim ah bulshadeena inay shaqada siinayaan marka inaga laftigeena inaynu saas u maalgashano ganacsigooda waa waajib waxaan kaloo runtii ku darayaa anigu shakhsi ahaan Turkish people wax badan bay dalkeena u qabteen annaga inteena qurbaha joogta waa waajib bay nagu tahay dariiqyo iyo airborre iyo dadka Turkish noo dhisay marka haddaan diyaarad raacayna inaan diyaaradooda Turkish Airlines raacno furniture haddaan gadanayna inaan furniture-ka Turkishka and besides waa macnaha waa top quality 30 years of macnaha experience waa top quality furnitures waa waajib baan oran karaa adduunyadu waxay dhahaan scratch your bag you scratch my bag you give me I give you waa gacmo isdhaafaa gacal ku jira marka waxaan leeyahay ha moogaanina meel joogtaanba Inegol home waa corridor ku yaala and actually waa South London and telefonkaas baa mar kale ku celinaya and waa fursad runtii qofkii ka faa'iideysanaya maybe the first caller ama first qof oo text message kaas dira and waa qadarin gooni mudan yahay waa 073 shaashada ku qoran yahay waa 99562408 waa ku celinaya mar kale waa 073 99562408 sidoo kale midka landline-ka waa wici kartaan waa ka shaashada ku qoran waa 0208 680 4256 marka waxaan leeyahay yaan lagaga hormarin text that message and someone inshallah will next couple of days ama berito ama saadam kula soo hadla numberka TV ku qoran waad soo wici kartaan marketing team-kooda iyaga kula soo xiriiraya Somali bay kugula hadlayaan waana ku soo dhaweynayaan coming back to you sir, instead of in terms of an installment let's say I can afford to pay I paid £1,000 to start with Yep. and then my budget is so tight I can only afford £300 a month. Yes. Will that was the minimum? Have you got some sort of system in place, the minimum you have to pay or maximum you have to pay? Absolutely not. I mean, when you take a product, the price of the product will divide it into the months that you want to take it for. I mean, some people pay £50 a month, and some people pay £150 a month. So depending on their budget and depending how much they can afford to pay, we help them. We sit down, we do the maths, and then we apply for the finance for them, which is 0% interest. So regardless, whether if they pay within the 4 year or whether if they pay within a month or 2 months or 3 months, they don't pay anything extra than what they actually pay for the product. Fantastic. waad maqlaysaan sidoo kale haddii aad doonaysid inaad installment ku bixiyo wax ama aad tartar yaryarayn u bixisid wax interest haba yaraatay ma jirto waxa aad bixinaysaa waa wixii aad qaadatay iyadoo tartiib bishiiba haddaad 100 awoodid haddaad 200 bishiiba awoodid wixii aad ku heshiisaan oo aad isla meel dhigtaan baad bixinaysaa marka taasna waa mid kale oo aan runtii meelaha kale laga helin waa halal environment waa no interest no riba totally and absolutely and waa wonderful macnaha aad muhiim u ah bulshadeena inaana wax riba guryaheena keenin marka arintaasna ku dadaala on the other side Croydon is South London. I am a mother who lives in North London or maybe Walthamstow East London and I'm interested on your store. I bought some stuff from you. How am I going to get home? Well, we can always provide you services to actually get home. We can always, as long as you buy the products, we're more happy to kind of take you back to your home in safe. We can pay for your minicab. We do have kind of services. However, this is something that we need to pre-arrange before we actually turn around and go ahead with it. But the great thing is this: regardless whether if you live in North London or West London, we will guide you in terms of the transportation, how to get there. But if you cannot manage to come to the store, we will actually come to your house. So we will send one of our experienced sales member, who will speak Somalian as well. They will come to your house with all the materials, whether if it's a sofa leather, whether if it's the fabrics, whether if it's the brochures. We will also bring our laptops, and we will show you everything on the screens
on a digital PDF files, catalogs, and you will actually choose from various of ranges in your own house. Wow. And we can also advise you with a few interior design services as well. Wow, that's an amazing. And arrintaas runtii muhiimad badan bay leedahay. Inegol, haddii aad rabtid kaba soo qaad westiga aad degan tahay ama eastiga aad degan tahay, aad alaabta aragtid oo aad xiiseynaysid oo aad real tahay doonaysid inaad wax gadatid, Inegol gurigaaga kugu iman kartaa. Waxaad taaban kartaa material kursiga ka samaysan yahay iyadoo yar yar oo jaran baa lagu keenayaa, aad taaban kartid, dareemi kartid. Waxaa lagaa tusayaa iyadoo vision ah laptopka ama tabletka lagaa tusi karaa. Marka Inegol gurigaaga kugu iman kartaa haddaad soo gaari weydo. The other points I was trying to refer in terms of visiting homes. If I buy the stuff, would you do free delivery or? Absolutely, we do free delivery and 3 fittings everywhere in the UK. So if I buy the stuff from you, I don't have to hire someone else to fit it on to put it all together? Absolutely not. This is all our responsibility, Inegol Home responsibility. When you purchase a product, we will deliver free of charge, and our experienced delivery guys, they will do all the fittings. Aad maqlaysaan taasna haddii aad Inegol wax ka gadato iyagaa gurigaaga kuu keenaya, gurigaaga markay kuu keenaan iyagaa ku xirxiraya. Normally waxaa dhacda dukaamadaas kale markaad ka gadato in haddana qof kale aad sii hire garaysid ama aad qof kale lacag ku siisid inuu alaabta isugu kaa xiro. With Inegol iyaga ayaa ku imanaya, iyaga ayaa alaabta kuu keenaya, iyaga ayaana xirxiraya. Haddii wax ka xumaadaanna serviceka iyaga ku soo sameynaya oo ku iman kara. Numberka shaashada ku qoran baad soo wici kartaan haddii aad wax su'aal rabtid. Teamka marketingka ayaa diyaara hadda inay idinla hadlaan, marka numberkaas anytime ayaad soo wici kartaan. Waxaan idin leeyahay meel aad joogtaanba ballanteen waa Inegol Home Furnitures oo ka heli kartaan kuraas tayo leh, jiifaf aad u qurqurux badan, qolalka caruurta. Inegolna waa 30 jir shirkad ah oo 30 sano sameynaysa oo hadda waliba laga yaabo inay wadankeena laftiisii geyso alaaba noocaana insha Allah. Marka waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta alaab tayo leh iyo qiimo jaban oo idin raali geliya. Waliba waxaan xasuusinayaa offerka ah special offerkan buy one product haddii aad hal mid gadatid, kursigaas haddaad gadatid, kan kale in half price lagaaga dhigayo, ama qolkaaga chiefkaaga haddaad adigu gadatid, qolka caruurta inuu noqonayo half price. Ka faa'iideysta fursadaas waa 073 99562408 baan idin leeyahay yaan lagaaga hormarin. Coming back to you, sir, what other areas you would be encouraging? Why would I? You know, I understand you provided halal environment. I understand you bring stuff to homes and you fix them and you give them guarantees, a good installment, no riba. Any other selling points? This is actually a very good question, because there's one thing that we have a service that no other furniture companies can provide. With most of the products that you see on the screen, we can actually make them to the measures of their rooms, of the customer's rooms. So, for example, this is actually a very good point for people who have very small living rooms, where they struggle to fit sofas in, because in the UK the rooms are very small and the shapes is kind of off-key. So what we do is, all they have to do is, they have to come us with a measure of the sofa, the area, or if they're not capable, we can go to the house and we can take the measurements ourselves as well. And we will actually make the sofa in exactly the measurements where it's going to fit into the house. Wow. And this is one of the offers that we actually implemented now in 2016. Most of our sofas are made for measure. And we have wardrobes starting from 2 meters, can go up to 3 meters. Wow. So we're very, very flexible because we are the direct manufacturer. And in the UK, we understand people struggle with small houses. And this is one of the key services that we provide. That's amazing. I don't think there's any shops out there who will provide measurement gurigaaga kaba soo qaad kabar qurux badan baad soo aragtay markaas tira alla aqalkayga ma geli karo meesha ugu yar. With Inegol aqalkaaga mid geli kara baa lagu measure gareynaya. That is amazing. Sidoo kale sariirtii aad isla oran lahayd alla chiefkan wuu igu fiicnaan lahaa laakiin darbigiibu ku dhagayay halkan armaajo kale ma geli karto. With Inegol chief ka adigu rabtay baa lagu leekaysiinaya gurigaaga. And that's one service, and I think meel kale uu yaala ma laha. Marka
ka gaaraan leeyahay. And with that, that's an amazing and offer, and I think that's a quite unique one. And one other thing, you know, being married to Somali women, and I know Somali women, they like matching stuff with their curtains and their floors. And did you send advisors to come to their houses? Perhaps when they are buying, for example, a bedroom or their living room sofas, do you advise them colors and stuff? Yes, we do provide interior design services. Our salespeople are very highly trained in terms of interior design. We get a special interior design teacher who comes and teaches us about the color combination, the style and the fabrics that can be used. Because when customers choose the sofas, they can change, they can play around with the sofas in terms of leather arms, fabric, seating areas, or whether if they want brown and white, black with cream. So we can all do the combination. We ask a lot of questions, especially about the floors, about the curtains, about the wall colors of the customer's house, and then we can always help them and to make sure they make the right choice with the sofa colors as well. So my carpet, my floor, my wall, if you know that, you can already design what kind of sofa will be matching. Of course, yes. And we can also advise them, if they don't have any of the curtains or they're planning to get new ones, we can also advise them on the color combinations, what color curtains or what color carpets they should go with as well. waad maqlaysaan gurigii runtii kursigii quruxda badnaa iyo alaabtii qaaliga ahayd inta la soo gato la oranaya alla derbiga uma eka iyo dahan isma qabtaan iyo wixii oo dhan baa la isu kaa qabadsiinaya interior designer professionals ayaa kaa caawinaya kursigaas hadda ka muuqda shaashada injineerkan ka codsanaya bal inuu tusee kursigaas haddaad ka heshid kaba soo qaad oo tusaalaan idin siinaya laakiin aad dhahdo alla derbigaygii baa si kala u ega kursigan aniga yaa waxaa lagu sameynayaa kursiga laftigiisii oo colorkii matchingka ahaa floorkaagii iyo daahaagii iyo waxaagii dumarku idinka yaqaana aad soo ekakeysiin jirteen cajaa'ibka ahaa sidii baa lagugu sameynaya marka professional designers baa jooga loo tababaray oo weliba xataa adiga tib ku sii siinaya kursigan haddaad garatid daaha noocaad kusoo bixi lahaa baa lagaa sii waaninaya and that's another amazing offer aad ka heli kartaan only in Inegol home furnitures. And finally, I mean, that's so many amazing stuff, and I think people are going to go and queue for it. What other messages do you want to deliver tonight? I got a couple of messages actually, if we have time. Number one, we get a lot of calls from Birmingham areas, from Bristol areas, outside London, and we do turn around and we help them a lot with the help of the technology now these days as well. Our internet, they can see the images. Our salespeople, they keep in touch with them via phone, via WhatsApp. We provide all the information about the products. They don't have to travel all the way to our store. We provide all the information about the product, about the colors, combinations. We help them. We even do Skyping. We do live, face-to-face video chats, so that we show them live over the phones, videos, how the sofa bed works, you know, how the storage works, what color the bedrooms are. So ideally, we are very, very specific when it comes to providing the correct information for people who live outside the city. And they can go to the website, which is www.inegolhome.com. inegolhome.com. So haddii aad degan tahay Manchester iyo Birmingham, Inegol mar walba agtaada jooga. You can go and visit the websites-ka and Inegol Home. Haddii aad waxaad jeceshahay ku aragto oo aad rabtid inaad more questions sii weydiiso, waxaad wici kartaa numberkaas. Sidoo kale shaqaale af Soomaaliya English language barrier ma noqonayo baa ku gaargarayn doona adigoo meeshaada jooga ayaa lagu tusayaa wixii visual ah adigoo meeshaaga jooga ayaa dooranaysa adigoo meeshaada jooga lagu advice garanaya adigoo meeshaada jooga ayaana deliveryga lagu keenaya marka you don't have to macnaha all the way from Birmingham iyo Bristol iyo Sheffield iyo my friends in Manchester iyo يعني you don't have to come all to London. You can go online with www.inegolhomes.com and see what's offering in place. Give them a call, get some advice, inshallah, from Somali speaker teams, from other and fellow
teams, they will guide you one step and inshallah and you can take it from there. Marka inshallah arrintaasina aad iyo aad bay u muhiim tahay. Halkaas page-kaas booqda ka bogta waxaad rabtaan iyadoo muuqaal aad arkaysaan intaan caawa idin soo bandhignay numberkaasna marka labaad wici doonta. The other points you were trying to raise, go on. Yes, at the moment, what I believe, we did some research as Inegol Home. I mean, as the director of the Inegol Home, I'm not the only person, but there are other directors. We are very, very specific with the social support in terms of giving something back to the communities. Because what we did a bit of research, and there's quite a few furniture companies owned by the Turkish people. And at the moment, Turkish companies, these furniture companies, they're making quite a lot of money, thanks to Somalian community. But what we realized as Inegol Home, we take it, but we're not giving anything back. So what we decided, we are working on a project at the moment, which we sponsored Alpha Trust. As you know, they're one of the best charities. They do a lot of work, humanitarian work back in Somalia, helping children and families and people who in needs. So what now we're doing is we're in touch with them, and we're trying to see how we can actually provide a support for Alpha Trust charity to actually turn around and make a difference in the Somalian community back at home as well. So the whole plan is, when somebody who's Somalian background that comes and buys the furniture from us, we want to actually give something from that back to Somalian community, Somali nation. And that way, obviously, it's something, like you said, scratch my back, I scratch your back. And this is something that we're working on at the moment, which I think is very important. And I hope every other company, it's not just us, will open their eyes and be a bit more faithful to Somali communities. Wow. Arrintaas runtii aad iyo aad bay muhiimadeeda u leedahay. Inegol qof walba oo Soomaaliya wax ka gata, bal qiyaas arrintaas. Qof walba oo Soomaaliya oo wax ka gata, kursigaas aad gadatay, gurigaagii baad quruxsatay. Laakiin kursiga aad gadatay lacag ka mid ah baa waxay wax taraysaa dadka maatada Soomaaliyeed, dadka indhoolayaasha, dadka curyaamiinta. Hay'ad runtii aniga lafteedu aan taageerayaasheeda ka mid ahay oo la yiraahdo Alpha Trust bay sponsor gareeyaan oo insha Allah sanadkiiba wax yar siinayaan waxaasoo dadka Soomaaliyeed wax loogu qaban doono waxaasna waxa laga jarayaa wixii ayagu ay faa'iidadooda ay qaadan lahaayeen. So haddaad Inegol wax ka gadatid, you're actually sadaqaad baxsanaysaa Soomaaliya tagaysa. So you buy from Inegol, at the same time waxaad caawinaysaa dalkaagii iyo maatadaadii. And that's runtii sabab kale aan u boorinayo inaad Inegol ka qaadataan. And one of the questions coming from the studio, this chair, beautiful chair, keeps coming back. Can I have that one on blue, perhaps on purple, perhaps in yellow? You can have it any color you want to. Yeah? You can have it in black arms, and you can have a brown seating area, you can have beige, cream, any colors you want. And the little cushions, you can have flowery that will combine with your carpet and curtains, and we will guide you through the colors, definitely. And all these sofas, they are sofa bed as well, and they have a storage underneath. So both sides, they all sofa beds, very easy to open, and we can make them to the size of the living room. Are you telling me that chair Yes, can become a bed as well? absolutely. In both sides, as you can see now, it's actually a sofa bed. Wow. Wow. Easily 4 people. waa la socotaa mar malaynayaa ya adoo hadduu cabaar daalo kursiga un baad sariir looga dhigaya marka runtii waa cajaa'ib waa very latest technology. waxaan xasuusinayaa Inegol waxay jirtaa 30 sano. waxaan xasuusinayaa daawadayaasha mar kale adduunyadu waxay wax ku kala qaadataa gacmo isdhaafa gacal ku jiraan baa la oran jiray. Turkigu wax badan bay noo sameeyeen dadkoodu ganacsatadoodu. Inegol diyaar waxay u tahay waxa aad adigu ka gadatid inay qayb ka mid ah Soomaaliya u doonid garayso through Alpha Trust oo ah urur runtii dhalinyaro hogaaminayso oo wax badan wadanka ka qabtay caruurta curyaaminta. Marka waxaan leeyahay kursiga qaado caruurtii xanuunsanaydna wax tag, kursiga qaado kuwa indhaha laana lacagta wax loogu fiiq lahaa oo Alpha Trust oo kala qaadanaysay ka gaar baan ku leenahay insha Allah. And I wish inaad all of you inaad arrintaas sameysaan. Mar labaad baan ku celinayaa telefonka, text message baad hadda u diraysaa, qof baa ku soo wacaya, waa eber 73 qalimadeedii ma haysataan, shaashadu ku qoran yahay, waa eber 73 99 56 24 eber 8 and numberkaas text message u dir insha Allah, qof baana kula soo xiriiraya ilaa iyo berito.
one of the amazing offers and amazing stuff that in fact that whatever you buy from Inegol is also aware it's giving back to the community. That's another amazing offer where you can uniquely only in Inegol I can say that's an amazing stuff. And your final comment, please. And is there anything you want to add before we close the show? All I will advise people to come and have a look at our store. They don't have to buy. This is not just about buying, but please, everyone's open. Our store's open to everybody. Come and visit us. Have our Turkish tea, Turkish coffee. Let's spend some time together. Look around, do research. What you will see, you will only see the quality once you do your research. And we believe that every customer walks into our store, they go out with a big smile on their face, and this is the most important thing for us. aad iyo aad anigaaba u horeynay waad maqlayseen bal na soo booqdu yiri bal horta indhihiina wax ku arka bal waxaan idiin samayn karnaa arka kadibna go'aan gaara Inegol waa open door waa idiin furan tahay and what days you are open from Monday to Sunday. From Monday to Saturday we are open 10 till 7. On Sunday we are open 11 till 6. 11 to 6 on Sundays marka waa maalin walba furan soo booqdaan leeyahay kole anigu yaa xajiyadiina kole TV-ga ka aragtay waan tagaya xajiyadan oo kaxaynaya adigu yaa xajiyada ma geenaysaa meesha kan iyo kanoo kale intaan ku kulmi doono waa aniga iyo saaxiibkay directorka Inegol. Thank you very much for coming. Thank you very much. leenahay ballanteenu waa Inegol Home Furnitures. Assalamu alaikum. shirkadda alaabta guryaha Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha. qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya. waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya. sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 gani oo kaliya. soofaha waxa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya. halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya. shirkadda Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha. waxa lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono. waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah. haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inegol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London. wixii faahfaahinta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. shirkadda alaabta guryaha Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha. qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya. waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya. sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 gani oo kaliya. soofaha waxa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya. halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya. shirkadda Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis gaaraya ilaa iyo 60% dhammaan alaabta guryaha. waxa lacag dulsaar ah ama riba lagama qaadi doono. waxaana lacagta u dhiibi doontaa si tartiib ama waliba bilbil ah. haddaba hore u gaar oo booqo xarunta dukaanka Inegol Home Furniture oo ku taala degmada Croydon ee koonfur galbeed magaalada London. wixii faahfaahinta dheeraada fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda. shirkadda alaabta guryaha Inegol Home Furniture waxa ay sameynaysaa qiimo dhimis ballaaran oo ah dhammaan alaabta guryaha. qiimo dhimistan ayaa socon doonta bilo kooban oo kaliya. waxa ay shirkaddu qiimo dhimis ku samaysay sida sariiraha jiifka oo ka bilaabanaya 1299 baan oo kaliya. sariiraha loogu talagalay qofka kaliya oo leh meelo lagu kaydsado ayaa waxa ay ka bilaabanayaan 299 gani oo kaliya. soofaha waxa xilligan laga dhigay 1300 oo baan kaliya. halka alaabta qolka caruurta lagaga dhigay 999 baan oo kaliya.